kulanti wacan oo wanaagsan meel waliba dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixin xasaasi ah oo aan ku eegi doono xidiga daafaca kaga ciyaara kooxda Bayern Munich Jerome Boateng. muxuu ahaa sharadkii laga helay Jerome Boateng ee ku qasbay inuu timihiisa midabka u bedelo? balse inta aan u guda galin warbixinta waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan si saaxiibo kale uu u gaaro share dheh aragtidaadana ka dhiibo mahadsanid. Jerome Boateng ayaa shaaca ka qaaday inuu timihiisa u bedelay midabka casuuska loo yaqaan kadib markii uu sharad ku galay in Bayern Munich aysan ku guuleysan doonin tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. daafaca Jarmalka ayaa ku guuleystay koobkiisii labaad ee Champions League bishii la soo dhaafay kadib markii kooxda Bayern Munich ay gool eber ay kaga adkaatay kooxda reer Faranse ee Paris Germain sabab la xiriira fayraska safmareenka ah ee dunida gilgilay ee coronavirus ama COVID-19. UEFA ayaa go'aan ku gaartay in xiriirkii la soo dhaafay in 12 maalmood lagu soo gabagabeeyay Champions League iyadoo lagu qabtay magaalada Lisbon ee dalka Portugal. Bayern ayaa awoodeeda ku soo bandhigtay Portugal iyadoo wadar ahaan labada lug ee wareegga 16 ku garaacday kooxda reer Ingiriis ee Chelsea kadib markii 7 gool ay ku reebeen kor inta aysan kulan hal lug ahaa 8-2 ay kaga adkaaneen kooxda Barcelona iyadoo 3 gool uga badisay Lyon kulankii semi-finalka. ma ahayn wax laga filayay inay sameyso Bayern Munich markii ay ciyaareen tababare Niko Kovac bishii November ee sanadkii la soo dhaafay markaas oo guuldaro 5-1 ahayd ka soo gaartay kooxda Eintracht Frankfurt. Boateng ayaa qirtay inuusan isagu filanaynin inuu kor u qaadi doono koobka Champions League xilciyaareedkii la soo dhaafay isagoo sharad kula galay nin ay saaxiibo yihiin inuu timihiisa midabeyn doono haddii ay ku guuleystaan koobka. waxa uu u sheegay wargeyska Jarmalka ee Bild loo yaqaano wuxuu saaxiibkii ugu yiri waan hubaa waad ku guuleysan doontaa koobka sharad ayaana kula galaya. waxaan u sheegay haddii aan ku guuleysano koobka inaan midabka timihii ka dhigi doono casuuska midabka loo yaqaano haddii aan ku guuleysan waayana inuu isaguna sidaas sameyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan. la yaab ayay u ahayd sharadkaas uu galay waan ku raacay waxba uma arko inaan midabeeyo timihayga maadaama ay ku timid sabab fiican. Boateng ayaa la xiriirinayay inuu ka tagi doono kooxda Bayern Munich iyadoo qandaraaskiisa uu u dhacay xagaaga dambe laakiin daafaca Jarmalka ka soo jeeda ayaa hantay koobka xidig walba uu ku riyoodo ee UEFA Champions League. warbixinteena waa intaas. fadlan la wadaag saaxiibada aragtidaadana ka dhiibo. Thanks.